Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan daawade soo dhawow waqti wanaagsan iyo barwaaqo ayaan ku rajaynayaa. Waan ku faraxsanahay inaan mar kale halkan ku kulanno. Waadna ku mahadsantahay inaad waqtigaaga muhiimka ah aad isiisay oo aad diyaar u tahay inaad dhegeysato waxa aan kuu soo gudbinayo. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo si kooban uga hadlo farqiga u dhaxeeya qofka wariyaha inuu noqdo correspondent ama inuu noqdo reporter. waxa igu kalifay mowduucan inaan ka hadlana waxa weeyaan oo ugu weyn waxa dhawanahan warbaahinta Soomaalida ku soo batay wariyayaal doonaya inay falanqeeyaan arrimaha jira oo doonaya inay odoros ka bixiyaan oo laga wareystay iyaga sidii khabiirkii oo kale ay uga waramaan markaasaan waxaan maskaxda geliyay malaha wariyaashu waxa ay u baahan yihiin in loo kala saaro qofka inuu reporter noqdo iyo inuu correspondent noqdo si kooban markaan u sheegno marka correspondent waxa weeyaan qof goob deegaan ama qodob ama mowduuc gooni ah markasta uga warama warbaahinta uu shaqeeyo ee wargeys TV ama idaacad wuxuu ka hadlaa mowduucaas kaliya sida tusaale ahaan wariyaha arrimaha dhaqaalaha oo kale wariyaha arrimaha dhaqaalaha waxa wax laga weydiiyaa dhaqaalaha oo kaliya sida tusaale ahaan wariyaha arrimaha diblomaasiyadda oo kale wariyaha arrimaha gaashaandhigga يعني waxyaabaha soo kale ama waa wariye ka soo warama goob gooni ah sida wariyaha ka soo warama xarunta baarlamaanka wariyaha ka soo warama xarunta madaxtooyada wariyaha ka soo warama isbitaalka yani sidaas oo kale qofkaas waxa uu noqdaa waxaan loo yaqaanaa correspondent waxa uu leeyahay khibrad uu mowduucaas u leeyahay oo laba meel ka timaada dhanka koowaad waxay ka timaadaa aqoon cilmi ahaan uu u bartay oo heer jaamacadeed ama macad uu ku bartay ama khibrad uu ka helay muddadaas uu shaqada ku jiray qofkaas marka waxa uu khabiir ku yahay correspondentka waxa uu khabiir ku yahay mowduucaas goobtaas ama arintaas uu ka warramo markasta reporterku marka laakiin wuu ka duwan yahay midkaas reporterku waa qof shaqeeya oo wararka soo ururiya dhacdooyinka taagan soo ururiya ee gobolka dalka ama regionkaba ka soo warrama ayuu ka warramaa hal meel kuma xirna hal qodobna kuma xirna laakiin wax kasta oo cusub ayuu soo tabiyaa wuxuuna xogta ku helaa waraysiyo shirar jaraa'id goobaha dhacdooyinka dhacayaan uu tago arrimahaas ku helaa waxaas isku jarjaraa dabeedna dadku uga warramaa waxyaabaha marka ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah qofka correspondentka ah waa loo ogol yahay in uu marka uu warka gabagabeynayo oo kale ama uu marayo xagga ugu dambaysa warka inuu ku daro arin aragtidiisa ku saabsan oo laakiin xaqiiq ah oo aan dhaawacayn dhexdhexaadnimadiisa dhaawacayn laakiin reporterka marna looma ogola inuu aragti ku daro waxa saas loo leeyahayna waxa weeyaan qofka reporterka ah kuma takhasusin qodobkan uu ka hadlayo muddo badan kama uu soo warramayn ma aha qodob looga bartay inuu isaga kaliya ka sheekeeyo qofka marka uu arinta muddo ku dhex jiro khibrad baa u kororta waxbuu bartaa marka arrimahaas barashada iyo cilmiga uu helay wuu gaari karaa conclusion ama gabagabo wuu gaari karaa laakiin qofka reporterka looma ogola gabagabada marka shaqada correspondentku way ka adag tahay way ka dhib badan tahay reporternimada maxaa yeelay waxa lagaga baahan yahay inaad cilmi u leedahay waxaan aad ka warramay sida aqoon u leedahay oo aad u baratid tusaalahan hadaad tahay wariyaha dhaqaalaha hadaad tahay wanaad dhaqaalihii taqaana wanaad fahmi kartaa wanaad suuqii la socon kartaa wanaad garan kartaa waxyaabaha yani qiimo dhaca lacagta keena waxyaaba saamiyadu sida u shaqeeyaan bangiyadu sida u shaqeeyaan suuqa waxyaabaha jabiya sida u kala shaqeeyaan waxyaabo badan oo dhaqaalaha ku saabsan anigu maahay khabiir dhaqaale marka waxyaabahaas oo dhan oo aan basically ahayna si fiican aad u fahansan tahay muddo badan aad ka shaqeynaysid anaga marka wariyaal Soomaaliyeed ahaan correspondent ku nagu yaryihiin maxaa yeelay male correspondent waxaan si kooban u oran karaa wariye takhasus ku sameeyay qodob waan qodob takhasus ku sameeynaa oo aan hal arin ka hadalnaa oo aan hal arin baranaana loo kaga bartaa markaas aan noqon karnaa correspondent laakiin inta aan nahay wariye guud oo warka ururiya warka sheega waraysiyo qaada warbixina sameeya correspondent maahin waxaan nahay kaliya reporters baan haddaan wararka tabino kuma jiraan barnaamijyada ka sameeya marka reporters baan nahay
shaqadeennuna waa ururinta iyo ka warraminta isku jarjarida dhacdooyinka jira si dadku ay go-aan u gaaraan. waxaan ku gabagabeynayaa marka oo gabagabadii aan rabaa inaan ku soo xiro casharkan. weriye haddaad tahay mar kasta waxaad ku tahay weriye oo asal ku ah aaminaadda iyo dhexdhexaadnimada. laguma ogola, sharciga warbaahintuna ma ogola, mana banaynayo wax luminaya dhexdhexaadnimada, wax luminaya. waxaan rabaa inaan ku idhaahdo oo weliba si cad ku idhaahdo ha ka dhigan tusaale warbaahin aad aragtay ama weriye aad aragtay. caalami ha noqdo oo warbaahin dad badan la hadasha ha noqoto oo adduunka in badan la hadasha, ama warbaahin gobol la hadasha ha noqoto, ama weriye muddo badan shaqaynaya ha noqdo, weriye muddo dhow shaqaynaya ha noqdo. ha u qaadan tusaalaha ka dhigan. maxaan kuu leeyahay tusaalaha ka dhigan? waxaan kuu leeyahay waxa weeyaan weriyahaas waxaa laga yaabaa inuu isagu leeyahay ajenda gooniya oo uu sharcigii si khaldan u adeegsado marka sidaas daraaddeed ha u isticmaalin. warbaahinno waaweyn oo caalamiya oo waxaa jira dana u adeega. sidaas daraaddeedna wararka iyo barnaamijyada iyo warbixinada ay samaynayaan aysan ahayn kuwa dhexdhexaada oo bias ay yihiin, kuwa dhinac u xaqlinaya ay yihiin, oo aan si daacadnimo ah loo baarin. marka waxyaabaha asalka ah waxa weeyaan sharciga inaad raacdid mar walba. sharciguna waxaa asal u ah in lagu aamino. waxa lagu aaminayaana waa dhexdhexaadnimo iyo xaqiijin weeyaan, oo aragtidaada iyo aragtida qof kaleba ay ka maqan tahay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. haddii aad haysid wax tala iyo tusaale iyo su-aalba xagga hoose ayaad igu reebi kartaa. waad mahadsan tahay.